Asalaamu calaykum soo dhawaada kusoo dhawaada muuqaal cusub muuqaalka waxaan kaga hadli doonaa calaamadaha foosha ee bilowga ah iyo tii maxaa lahaa saxda ahayd ee gabadha ay ku dhaleysa ayaan kaga hadli doonaa muuqaalka marka haddii marka kugu horeysa soo booqata ay tahay subscribe noo saar gambaleelkana furo si fiidiyowyada cusub ay kusoo gaaraan haddii maxaa lahaa hore noola joogteen asxaabta iyo familka ay kamid tahay like noo saar si maxaa lahaa like waxay naga caawin in dad badan muuqaalka ay gaarto anigan dhiirigelina ina qanaysi maxaa lahaa energy fiican oo helo oo muuqaalo badan oo soo diyaariyo asxaabtaadan oo sii share gareeyo marka soo dhawaada muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa calaamadaha foosha ee bilowga ah waxaan kala qaybinaynaa ilaa 6 calaamadood marka calaamadahan bilowga ah ee 6da qaybood aan u soo qaybin doono gabadha markay isku aragto dhalmadeedu waxay qaadataa 2 isbuuc ilaa 4 isbuuc ay qaadataa ugu yaraan 2 isbuuc ugu badnaan 4 isbuuc ay gaartaa marka calaamadahan hadii isku aragtay qaar kamid ah 3 camal ama 4 camal ay soo raacdo maxaa lahaa gabadha dhalmadeedii way dhowdahay markaas waa inay maxaa lahaa waxay diyaarsan karto kale ay diyaarsataan tan ugu horeysa calaamada koowaad waxaa waa inay gabadha xanuun ka dareento dhabarka qaybta hoose inay xanuun ka dareento waa marka xanuunkan ay dareemayso waa xanuun maxaa lahaa oo si u joogtaba hal mar qabanayo maxaa lahaa oo shaab ah waa marka xanuunka hal mar ku qabto maxaa lahaa wixii haysay sii deynayo kale xanuun fiican waa ma hadli karto energy maxaa lahaa waxaan energy-geeda xidhan isugu geeyay inay maxaa lahaa qof ma jeerahay camal ay naqato marka qaybta hoose waa 2 daqiiqo 3 daqiiqo oo ay kadib boodaya maxaa laga yaabaa inay saacada ka nasato ama maalmo ay ka nasato haddana mar kale uu soo qabtaa laga yaabaa marka qof bas iyo u qabtaa taas waa calaamada koowaad calaamada labaad waxaa waaye marka in maxaa lahaa mindhicirka qaybta hoose maxaa lahaa gabadha xanuunto marka dadka qaar laba sii oo xanuunta kuwana hal dhinaca xanuuno oo kasoo qaad dhinaca bidixda ama dhinaca midigta xanuuno dadna labada dhinaca xanuuno wareega hoose wada xanuuno marka haddii wareegaas hoose uu xanuunayo xanuunka marka kan dhawr xanuunka qaybta hoose oo lamid yahay oo asagana waxaa xanuun hamar intuu imaado daqiiqada ilaa 3 iyo 4 daqiiqo ay haynayo oo maxaa aysan hadli karin waxba aysan qaban karin ee meeshii uu xanuunka ku qabtay iyo ku ekaayay intuu xanuunka uu ka deynayo marka haddii calaamadaas ay isku aragto kale ayadana 2 isbuuc ilaa 4 isbuuc ay qaadataa dhalmadeeda maxaa lahaa insha Allah marka waxa haboon in maxaa lahaa ay ugu tala gasho ay isku sii diyaariso calaamada saddexaad ee gabadha isku arki karto waxa waayo kale in ay maxaa lahaa hoos ay ka dareento kale barashar inuu ka saaran yahay calashaan in wax ku riixayaan oo kale in gabadha hoos ka dareento kale oo maxaa lahaa riixitaan oo intuu hamar riixa iska tagay camal maahan in culays hoos u soo degaya camal ay hoos ay ka dareento qaybta hoose ayaa ayadana calaamada saddexaad ee gabadha isku arki karto calaamada marka maxaa lahaa tan xigta isku arki karta gabadha waxaa kamid ah maxaa lahaa in firfircooni maxaa lahaa u imaato firfircooni inay hesho maxaa lahaa gabadhi maalmahaas oo kale maxaa lahaa qof hool kar oo maxaa lahaa hool iyo shaqooyin maxaa la badan qabanayso inay naqato oo maxaa lahaa guriga nadiifi adigas nadiifi maxaa lahaa waxyaalihii mushi waxa ku galeedo kala diyaarso in firfircooni oo xaq ilaahay ka imaatay maxaa lahaa ee gabadhi ay dareento oo maxaa lahaa ayada dhan ay naqato qof firfircoon nashaad leh ay naqataa marka tan xigta waxay naqanay in maxaa lahaa qoyaanka hoos u bato caadiyan gabadha markay uurka yeelato ilaa ay kala leeso qoyaan ay leedahay oo maxaa lahaa joogtaha marna aan baabi'in ay leedahay laakiin 2 isbuuc ilaa 4 isbuuc oo qofka dhalmadeeda ay dhawaato qoyaanka wuu bataa oo qoyaan badan ay imaado oo laga yaabo xataa markay meel fariisato kale in qoyaanka meesha fariisato oo ku sawirmaayo oo maxaa lahaa wax hadi ilaa lugeeda ka tariiqay ma ahan laakiin waa wax hal mar maxaa lahaa mar si fiican inta u soo baxaan oo kale meesha fariisato kale qoynayo ama maradeeda si fiican u qoynayo wax muuqaaya ka dhigayo kale inay naqato maxaa lahaa qoyaan xagga hoose maxaa lahaa imahayo oo kii hore cabirka hore ay taqaanay intii uurka lahayd ka badan ah inay isku aragto iyo gabadha markay uurka yeelato inta badan maalin kasta inay isbuuc kasta miisaan ku siyaado markay isbitaalka tagto maxaa lahaa ama clinic dhakhtarka ku xirnay oo tagto miisaanka markay saarto culays isbuuc walba ku siyaadi jiray markan ay gabadha ay dhalmadeeda maxaa lahaa dhalmadeeda ay soo dhawaato miisaankeeda wuxuu noqdaa mid maxaa lahaa stable oo noqdaa miisaankeeda wuxuu noqdaa mid stable ah oo maxaa lahaa miisaan kordhaya ma yeelahayso marka miisaankeeda meesheedu taagnaha hadii isbuucan tagtay isbuuca labaad tagto oo maxaa lahaa miisaankii meesha hore u taagan waxba aysan iska bedelaynin waa inay soo diyaarisaa dhalmadeeda li'aan xilligeeda dhalmadeeda la gaaray caadi ahaan ilmaha waxay korrinshahooda oo sameeya miisaankan kordhayo
kan hooyada waaye kan hooyada haddii uu istaago isbuucan iyo kan ku xig maxaa lahaa kejiga ay fiiriso oo waxba aysan kusoo kordhin oo kale meesheeda ay taagan tahay markaas dhalmadeedii yaa dhow waa inay isdiyaarisaa laakiin dhinaca kale ilmaha bisha 9aad markay galaan korinshahooda markaas inta badan oo dhaca li'an 9 bil wixii ka horeeyay cunuga maqaarkiisii lafihiisii maxaa lahaa organadiisii indhihiisii tintiisii waxaas oo dhan awoorkeeda ayaa socda cunuga marka caata lafa waa laakiin bisha 9aad cunuga markay u dhalato wuxuu bilaabaa cunug inuu hilib yeesho bilaabo oo kale oo maxaa lahaa oo culeyskiisa cunuga maxaa lahaa cunug maxaa lahaa la qaban karo uu noqdo laakiin 9 bil inta ka horeyso kale cunuga caata ah oo lafa iyo maxaa lahaa maqaar iyo seeda isa saaran ah kaliya waa marka bisha 9aad oo kale waxyaalaha ilmaha koriyo waxaa kamid ah hurdada badan haddii bisha 9aad gabadha intay soo gasho hurdadeeda ay badato markii horena maxaa lahaa ilmaheeda culeyskeeda oo fiicnaa ilmaheeda aysan ahayn ilmo liito kale oo culeyskooda maxaa lahaa si loogu talagalay cabirka loogu talagalay ay taagnaayeen bisha 9aad markay soo gasho inay hurdada tirada badan iska yareysaa 8 saacadood ee loogu talagalay qofka inuu hurdo qofka caadiga waxaa loogu talagalay 8 saacadood inuu hurdo waa marka maxaa lahaa haddii 8 saac ay ka yaraato kale qofka maxaa lahaa caafimaad ahaan uma fiicno haddii maxaa lahaa 8 saac wax lagu daro xataa ilaa 9 saac ilaa 10 saac qofka caadiga laakiin 10 saac oo kale haday ka badato qofkan uma fiicno haddii 8 saac ka yaraatana qofka uma fiicno marka haddii markii hore uurkaada cunugaada computerka marka ay saartay oo kale cunugaada kejiga loogu talagalay oo ahaa waa inaa maxaa lahaa bisha 9aad marka soo gasho hurdada tirada badan axad u yeeshaa li'an hurdada tirada badan ilmaha way ku koraan sida haddii gabadha nafaqa darayso kale cunugeeda uu liitay bisha 9aad ay imaato kale cuntoyna loo qoraa hurdadana badiyaa lahaa si cunuga miisaankiisa uu kordho marka haddii cunugaada meesha loogu talagalay oo ahaa bilis hurdada tirada badan iska yaray si cunugaada overweight uusan u noqon marka calaamada ugu dambeyso oo gabadha lagu arkayo waxaa waaye inay caloosha socod sameyso marka in maxaa lahaa gabadha haddii calool adkeeda oo kale caloosheeda ay jilacdo oo caloosha socodkeeda oo bato maxaa lahaa marka caloosha socodkeeda inta badan kuwan maxaa lahaa scientific waxay dhahaan haddii caloosha gabadha ay socodkeeda oo bato 2 maalin 3 maalin ay qaadataa inay dhasho qaar waxay ku qaadataa oo kale caawa kale haddii caloosha socodkeeda bato subax inay dhashay u badan tahay laakiin inta badan waxay u badan yihiin lahay gabadha marka caloosha socodkeeda oo bato 2 maalin 3 maalin gudahood inay ku dhasho ayay u badan tahay marka calaamadahaas waa calaamadaha bilowga ahaayeen calaamadaha saxda ah ee gabadha tilmaamaysa in maxaa lahaa foosheedii saxdeed la taagan yahay waxa waaye in gabadha xanuunka 5 daqiiqo hal mar oo qabto ama 10 daqiiqo hal mar oo qabto dadkan isku mid maahan qofba si uu qabtaa dadka qaar waa 5 daqiiqo hal mar dadka qaarna waa 10 daqiiqo hal mar marka markuu xanuunku ku bilaabo kale saacad qaada fiiri muddo hal saac ah waxaa qabataa muddo hal saac oo ka soo qaado kale wuxuu ku bilaabay caawa hal saac oo ku bilaabo ka soo qaad caawa hal saac markuu xanuunku ku bilaabo ilaa 2 saac laga gaarayo meeqa jeer ku qabto waa inaad tirisaa 5 daqiiqo hal mar haduu ku qabtay 10 daqiiqo hal mar haduu ku qabto waa inaad saacad fiirisaa haddii muddo saacad kaamil ah aysan isbedelinin oo 5 daqiiqo hal mar uu yahay ama 10 daqiiqo hal mar uu yahay waa fooshi saxda ah ku dhali lahayd boorsadaadii waxaad ku xirxirna soo dhaweyso horena isbitaalka ka aadin just waxaa sugtaa saacad ilaa iyo 2 si maxaa la isbitaalka marka uu tagto waqti dheer aysan kugu sii qaadan oo maxaa lahaa ciyoon maxaa lahaa u dhashid laakiin haddii xanuunka 5 daqiiqo hal mar ama 10 daqiiqo hal mar uusan ahayn oo kale oo xanuunka intuu qabto oo kale 2 daqiiqo oo ku haynayo 3 daqiiqo ama 1 daqiiqo xataa intuu ku hayo iska baxo oo 10 daqiiqo ma yani 15 daqiiqo 20 daqiiqo oo maqnaado haddana uu soo laabanayo kale kaas fooshi saxda ah ma ahan waxa lahaa fulbenaada lahaa foosha ayada fulbenaadi ful maxaa lahaa saxda ah lagu dhilaayay kala taa marka haddii oo qofka maxaa lahaa fooshiisa xanuunka qabanayo oo soo waqtiyeysan oo 20 daqiiqo hal mar uu imaana ama 30 daqiiqo hal mar uu imaana ama saacadiiba hal mar uu imaana si kasta oo xanuun badan tahay taas ma ahan fooshi saxda ah ee waa fulbeenaadka laakiin haddii xanuunkaada 5 daqiiqo hal mar ama 10 daqiiqo hal mar uu yahay muddo saacad ah qabsataa aysan isbedelin xisaabta ay si sax ah ku socotaa fooshaas waa tii saxda ah waxaan u baahan tahay inaad soo diyaariso isbitaalka calaamada labaad waxaa waaye maxaa lahaa in biyihii maxaa lahaa ay imaadaan marka raximka afkiisa oo kale maxaa lahaa inta gabadha uurka leedahay oo kale wuu xiran yahay oo maxaa lahaa si dabiici oo ilaahay ugu talagalay wuu xiran yahay marka gabadha xilligeeda foosh imaata xarigaas maxaa lahaa oo minka afkiisa hay wuu jilcaa marka biyihii afka hore ku jira ee isku hay ay soo daataan marka dadka laba way u qaybsamaan marka foosh timaado gabadhna iyadoo xanuunkii bilaabinin ay biyihii soo dhaafaan midna xanuunkii markii muddo soo garaaco kadib maxaa lahaa biyihii ay yimaadaan laakiin caadi ahaan
qofku ilaahay u fududeeyaa u fududaata laakiin waxaa la dhahaa gabadha biyaheeda ayadoo xanuun dareemin ee biyaheeda soo hormaraan foosheeda ma dhib badno oo waxay u badan tahay fool maxaa la dhahaa isqa qabashadeeda ay isu dhowdahay si fududna ay ku dhalayso u badan tahay laakiin haddii uu xanuunkii foosha uu soo hormaro biyihina ay gadaal jiraan xoogo in waqti qaadata laga yaaba xanuun ay dareento marka waxaa la dhahaa gabadha ayadoo waxba xanuun dareemin biyaheeda soo hormaraan aaday u nasiib badan tahay la dhahaa marka insha Allah gabar walba uur leh inay nasiib badnaato aan ilaahay kaga baryayna ay u fududaato dhammaan gabdhaha hooyooyinka marka soo dhawaada markii kuugu horeyna soo booqata hadday tahay subscribe noo saar gambaleelkana furo hadaa hore noola joogtaan like noo saar asxaabtaadana u sii share gareysay kaga faa'iideysta soo dhawaada